بسم الله الرحمن الرحيم. شركة جرايد wuxuu daaran yahay wadada faras magaalaha aan oran karo waa wajigii umada waa halbowlihii dalka waa faras magaalihii dalka waa wadadii international community soo mareysay waa wadadii ictiraafka Soomaaliland soo marayay in la siyaasadeeyo oo runtii lagu shaabadeeyo in ama loo kooto lagu xiro reer oo la yiraahdo reerkaasi runtii ha keenan lacagtii wadada waa nuqsaan laga filayno golaha deegaanka arrinka caynkaas oo kala ah waxaan ugu baaqayaa shacabka bartamaha bariga koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa in maalmahan soo socda ay isugu iman doonaan shir weyne ay kaga arrinsan doonaan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa shirkaasi waxa ka soo qayb gali doona madax dhaqameedka muqaasha siyaasiyiinta dhalinyarada waxaana shirkaas runtii focuska lagu saari doonaa ama lagu lafaguli doonaa baahiyaha kala gedisan ee deegaanka ku xeeran shirkaasi wuxuu daaran yahay 4 qodob kow in degmada Maxamed Moogay Maxamuud Haybe oo ah laf dhabarta ama halbowlaha degmooyinka sida degmo ee magaalada oo runtii cashuur aad iyo aad u badan runtii ay ka soo xarooto in dadkaasi cashuurtooda ay u tashadaan oo laba guri runtii laga kireeyay labada degmo oo dadku oo la sameeyay maamul madax iyo majale oo tiradoodu tahay 25 xubnood kuwaas oo laga xisaabtami doono baahiyaha kala gedisan ee deegaanka ku xeeran qodobka labaad waxa la sameyn doonaa website weyn oo qurbajooga reerku ku soo xidhi doonaan oo ay ka dheehan doonaan hawsha loo kacay ee dhexda loo xidhay ee runtii wax loogu qabanayo deegaanka waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad aan hawada u marinayaa maayarka caasimadda Hargeysa oo fal runtii falxu ku degdegay oo mustaqbalkiisa shaabad ku ah inuu kala saaro inay wadadu tahay wada qabiil iyo wada qaran